nebigu dad buu ku dadaalay dhoobo dhagaxna kuma dadaalin ashyaa kuma dadaalin nebigu waxa uu ku dadaalay waa basharka likulli ummatin amiin wa amiinu ummati abaa cubayda buu rasuulku yidhi ummad walba aamin bay lahayd aaminka ummadaydu waa abaa cubayda buu rasuulku yidhi wamaa xadasakum ibnu mascuudin fasadiquuhu cabdullaahi ibnu mascuud waxa uu niiga sheekay oo dhan rumaysta buu rasuulku yidhi man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljannati man sarahu an yandura ilaa shahiidin yamshi calaa wajhi اlardi falyandur ilaa طalxa bn cubaydillah buu rasuulku yidhi ninkii jecel inuu arko ahlujanno arrada dusheeda socda ha arka buu nebigu yidhi طalxa bn cubaydillaah likulli nebiyin xawaariy nebi walba gargaare ayuu lahaa aniga gargaarahayguna waa zubayr buu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam dadkoo dhan buu nebigu yidhi jannaday jecel yihiin jannaduna waxay jeceshahay salmaan iyo miqdaad iyo bilaal iyo camaar bay jeceshahay buu rasuulku yidhi mansab ruba ashcasa akbara madfuucun fi labwaab low aqsama cala allahi la abarah minhum baraa binu malik nebigu wuxuu yidhi badanaa kuwa boodhaysan oo timoogu rifrif ay leeyihiin oo albaabada lagu celiyo oo hadday ilaahay ku dhaartaan dhaartooda ilaahay aqbalaayo baraa binu maalik baa ka mida buu rasuulku yidhi nebigu kuma dadaalin dhoobay wuxuu ku dadaalay bashar dad wuxuu u yimiday sida maanta innagu aan ku jirno si ka daran ku nool dadkiibuu dadaal iyo fikir iyo duco u geliyey dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen asxaabu maxamed bay noqdeen markii dambe suxba darajad ka sarraysa ma jirto ciisena xawaariyiin buu lahaa baa la yidhi nebi maxamedna asxaab baa lagu magacaabay jamacaddiisii asxaab khaatama alambiyaa bay suxbad la yeesheen saxaabatu muxamed baa la yidhi cali bnu abi aalib baa la weydiiyey oo lagu yidhi abubakr asidiiq iyo mu'minka ahle fircoon midkee fadli badan wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee mu'minka ahle fircawn oo arlada laga buuxiyey saacadda abubakar uu godka nebi maxamed kula jiray ayaa ka wada khayr badan buu yidhi daaka rajulun yaktumu iimaanahu kaasi nin wuxuu ahaa iimaankiisa qarsanayey wa haada rajulun aclana iimaanahu abubakarna nin wuxuu ahaa iimaankiisa markiiba muujiyey oo nebiga isgarab taagay buu ahaa calayh salaatu wasalaam fa kuma dadaalin nebigu dhoobada iyo arlada iyo turaabke bal nebigu bini aadankuu ku dadaalay quwaddiisii iyo fikirkiisiina wuxuu ku bixiyey siday bashariyaddu u islaaxdaa siday bashariyaddu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhowaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqa ula yeeshaan taasuu nebigeennu ku dadaalay calayh salaatu wasalaam ummadihii hore baa la yidhi mar allii markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisa